السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا جو معلن شريف فيديو وحكو سابسينها لبدا مادو اللو سو دري منهج كودن كان إنجليزكا مادة RSE iyo maadada RE marka horese waa maxay national curriculum waa maxay RE waa maxay RSE waa maxay farqiga u dhaxeeya RE iyo RSE ma la barayaa canugaaga RE ama RSE waalidka xaq ma u leeyahay inuu ka reebto carruurtiisa galaasyada laga bixinayo RE-ga ama RSE wixii ka horeeyay 1988 wadankan manhaj qaran ma uusan lahayn macallimiinta ayaa go'aamin jiray waxa la barayaa carruurta qaabka loo barayo iyo buugaagta la isticmaalayaba dhammaan iskoolaadka waxay isticmaali jireen manhaj ay macallimiintu diyaarisay 1989kii wasaaradda waxbarashada wadanka waxay soo saartay manhaj qaran oo sharci ah manhajkan wuxuu qeexayaa mowduucyada lagu baranayo maado kasta iyo waxa looga baahan yahay iskuulaadka inay baraan carruurta ayadoo carruurta imtixaan laga qaadayo si lagu ogaado carruurta inay barteen wixii laga doonayay in la baro iyo in kale RE iyo RSE waa laba maado oo lagu soo kordhiyay manhajka wadankan labadan maado waxa laga doonayaa dhammaan iskoolaadka ay dawladda maamusho inay baraan carruurta iskoolada iyo macallimiinta waxa laga doonayaa inay fuliyaan awaamiirta wasaaradda waxbarashada ayna baraan carruurta manhajka wadanka iskoolada iyo macallimiintu waxay awood u leeyihiin inay diyaariyaan qaabka wax loo barayo carruurta iyo aaladaha la isticmaalayo si carruurta waxan loo baro sidoo kale macallimiinta iyo iskoolada waxay awood u leeyihiin inay tixgeliyaan fikradaada marka ay meel marinayaan manhajka waa maxay RE waxay u taagan tahay relationship education oo macnaheedu uu yahay waxbarashada xiriirka RE waxa la barayaa dhammaan carruurta dhigata dugsiga hoose ee primary-ga iyo kuwa dhigta iskoolaadka xanaanada oo da'doodu ay u dhaxayso 3 sano ilaa 11 sano halka RSE ay u taagan tahay relationship and sex education oo macnaheedu uu yahay waxbarashada xiriirka iyo midka galmo laga bilaabo September 2020 dhammaan carruurta dhigata primary-ga iyo kuwa dhigta xanaanada waxaa la barayaa RE ama relationship education carruurta dhigata dugsiga sare ee secondary-gana waxaa la barayaa RSE labadan maado waxaa la barayaa dhammaan carruurta dhigata iskoolaadka dawladda iskoolada ka madax bannaan dawladda ee lacagta ah carruurta waxaa la barayaa BSHE oo ah maado qasab ku ah iskoolaadka dawladda aysan maamulin in ay baraan carruurta maadadan laftirkeedu waxaa ku jira qaybo ka mid ah RSE-ga dawladdu waxay ku tilmaamtay maadadan RE-ga in ay tahay dhismayaasha asaasiga ah iyo astaamaha cilaaqaadka wanaagsan gaar ahaan tixraaca saaxiibtinimada xiriirka qoyska xiriirka carruurta kale iyo midka dadka waaweyn waalidka xaq ma u leeyahay inuu ka reebto carruurtiisa marka la bixinayo maadadan jawaabtu waa maya waalidka xaq uma laha inuu ka reebo carruurtiisa inay bartaan maadada RE-ga ama relationship education baarlamaanka wadankan wuxuu isku raacay in qaybo ka mid ah RE-ga sida saaxiibtinimada iyo ammaanahaanshuhu ay muhiim u tahay carruurta inay bartaan sidaa darteed waalidiinta waa loo diiday inay kala baxaan carruurtooda marka la bixinayo maadadan waa maxay waxa lagu baranayo maadada relationship education ee primary-ga laga baranayo iyo iskoolaadka xanaanada waa maxay saaxiibtinimada waa maxay qoys reer ama family waa maxay guur xiriirada kala gedisan ee jira ixtiraamka dadka kale iyo kala duwanaanshaha noocyada kala gedisan ee qoyska xiriirka caafimaadka qaba iyo midka buka dabeecado la aqbali karo iyo kuwa aan la aqbali karin yaa caawin kara haddii ay u baahdaan caawinaad asturnaanta shakhsiyadeed tookaysi ula dhaqanka dadka kale si naxariis ixtiraam iyo xushmad leh muhiimadda daacadnimada runsheegga iyo weydiisiga ogolaasho iyo kan bixinta dawladdu waxay sheegtay in dhammaan carruurta la baro LGBT inta ay ku jiraan sanadadooda iskoolka si ay u bartaan bulshada ay la nool yihiin iyo xiriirada kala gedisan ee jira maxaa laga doonayaa iskoolaadka waxaa laga doonayaa inay la tashtaan waalidka inay la wadaagaan dukumentiga ay ku qoran tahay waxa la barayo carruurta iyo qaabka loo barayo inay u sheegaan waalidiinta qaabka wax loo barayo carruurta iyo inay tusiyaan buugaagta ay isticmaalayaan maxaa lagu baranayaa maadada RSE-ga ee dugsiga sare ama secondary schoolka xiriirka wanaagsan siduu u egyahay maxaa ka dhigaya saaxiibka fiican saaxiib fiican guurka noocyadiisa kala gedisan guurka wanaagsan ee guuleystay iyo xiriirada kale ee kala gedisan ka hortagga uurqaadista samaysashada xiriiro sokeeye iyo adkaysiga cadaadiska galmo dhaqan la aqbali karo iyo mid aan la aqbali karin xagga xiriirka
galmada ammaanka iyo midda caafimaadka qabta. faa'iidooyinka cilaaqaadka caafimaadka qaba iyo is-ixtiraamka, caafimaadka galmada iyo aqoonsiga jinsiga, xaqiiqada iyo sharciga ku saabsan galmada, xadgudubka guriga oo ay ku jirto qasab iyo xakameyn dabeecadeed, waxyeeleynta jireed iyo mid shuruuceed ee xubinta taranka ama gudniinka iyo dhibaatooyinkiisa, nabdoonaanta internetka iyo akhlaaq xumada internetka. waalidka maxaa u bannaan uu samayn karaa? xeerka dowladda ayaa wuxuu amrayaa iskoolada inay la tashtaan waalidiinta ayna wargeliyaan go'aaminta goorta la barayo carruurta maadadan. sidoo kale waalidiinta waa ina la siiyaa dukumentiga ay ku qoran tahay waxa la barayo carruurta iyo qaabka loo barayo. carruurtaada ma ka reeban karta? jawaabtu waa maya. RSE-ga ma la ogola inaad ka reebatid carruurtaada maadadan. waalidka xaq uma laha inay ka reebaan carruurtooda marka la bixinayo casharada RSE-ga, laakiin waalidku wuxuu xaq u leeyahay inay ka reeban karaan carruurtooda marka la bixinayo casharada galmada ka hor cunuga inta uusan noqon 15 sanadood. mar hadduu 15 sano noqdo, asaga ayaa u madax bannaan inuu barto iyo inuu iska dhaafo. waalidka haddii doonayaan carruurtooda inay ka reebtaan casharada galmada, waa inay taleefon u diraan ama ay la kulmaan madaxa dugsiga ama head teacher-ka oo laga yaabo inuu weydiiyo sababaha ay waalidka u doonayaan inay uga reebaan carruurtooda maadadan, si uu u hubiyo inay haystaan warbixin ku filan oo ay go'aan ku qaadan karaan. RSE-ga oo loogu talagalay dugsiga sare ee secondary-ga ma lagu dhigi karaa dugsiga hoose ee primary-ga? jawaabtu waa haa, laakiin iskoolku waa inuu waalidiinta la tashto una sheego waxa la barayo. haddiiba ciyaalka RSE primary-ga lagu barayo, waalidku wuxuu xaq u leeyahay inuu ka saarto carruurtooda marka la barayo qaybta galmada. inta kale xaq uma laha. boqortooyada ingiriiska oo dhan miyaa laga hirgelinayaa maadooyinkan cusub marka la gaaro Sebtembar 2020? jawaabtu waa maya. labadan maado waxaa lagu soo kordhiyey manhajka waddanka England. Scotland carruurta hadda waxaa laga baraa maado la yiraahdo RSHP oo u taagan Relationships, Sexual Health and Parenthood Education. maadadan qasab kuma aha ardayda waddankaas in la baro, laakiin Scotland ayadu way aqbashay waxbarashada loo dhan yahay, waxayna hirgelaysaa 2021. Wales ayagu waxay meel marinayaan maadadan laga bilaabo 2022. Northern Ireland iyagu iskoolaadka iyo macallimiinta ayay u daayeen sida ay wax uga qabanayaan maadadan RSE-ga. fadlan subscribe dheh si aad u hesho video kasta oo aan soo gelino, waqti kastana aad ula socoto isbedelada waxbarashada ee carruurtaada iyo qaababka aad ku caawin karayso. waa mahadsantahay.